Assalaamu calaykum. Dhiig la'aan waa in dhiiggaaga aysan ku jirin in kugu filan inaad isticmaasho unugyada dhiigga cascas ee loo yaqaan RBC ama red blood cells afka qalaad. Kuwaan waxay qaabilsan yihiin ama shaqadoodu tahay inay kuu qaadaan oksijiinka jirkaaga uu u baahan yahay. Waxaa jira wax jirka ku caawinaya inuu soo saaro unugyada dhiigga cascas, waana birta ama afka qalaad iron-ta waxa loo yaqaan. Sidaa daraaddeed, bir la'aanta jirkaaga ama iron la'aanta waxay kuu keenaysaa nooc ka mid ah dhiig yarida oo loo yaqaan dhiig la'aanta ay keentay biryarida jirka ama afka qalaad iron deficiency anemia. Fadlan daawade, haddii aad u baahan tahay inaan ka soo hadlo caanaha ugu fiican ee ilmaha dhallaanka ah kana yar 6 bilood, comments-ka iigu reeb. Dhiig la'aanta birta ama iron deficiency anemia waa tan ugu badan ee ku dhacda dadka. Jirkana waxa uu ka helaa birta ama iron-ta cuntooyinka qaar iyo unugyada dhiigga cascas mid ku kaydsanayd. Waxa ugu badan oo sabab u ah inay dhacdo noocan dhiig yarida ah ayaa waxa ay tahay inaad isticmaashid ama dhallaanka la siiyo cunto ama caano ay ku yar tahay birta ama iron-ta afka qalaad. Sidaa awgeed, marka ilmaha yaryar ama qofka uu ku jiro xilliga korinshaha degdegga ah, waxa uu u baahan yahay iron badan oo muhiim u ah inuu si fiican u koro. Dhallaanka ama carruurta dhowaan dhashay waxaa ku kaydsan jirkooda bir ama iron badan. Ilmaha hadda dhashay iyo kuwa sanadka ilaa 4 sano u dhexeeya, jirkooda waxa uu maalin kasta u baahan yahay inuu dhuuqo ama nuugo iron xaddi badan leh. Noocan dhiig la'aanta waxay inta badan saamaysaa ilmaha 9 bilood ilaa sanadka jira. Ilmaha naaska nuuga iyo kuwa isticmaala formula milkiga uma baahna iron badan maxaa yeelay jirkooda waxa uu si fiican u absorption gareeyaa ama u nuugaa iron-ta, waxaana sabab u ah naaska hooyada oo laga helayo iron, halka caanaha formula milkina ay ku jirto iron, sidaa daraaddeedna la yiraahdo iron fortified milk. Aan u nimaano ciwaankeena ah caanaha lo'da iyo sida ay u keenaan dhiig la'aanta ilmaha. Ilmaha ka yar 12 bilood ee caba caanaha lo'da halka laga siin lahaa naaska hooyada ama caanaha formula milkiga oo loogu talagalay ilmaha marka ay dhashaan ilaa 1 sano, waxaa ilmahaas lagu arkaa dhiig yari. Dhiig yaridan waxaa loo sababeeyaa 3 arrin. Midka koowaad, waxaa yar iron-ta ku jirta caanahan. Midda labaad, waxa ay keentaa dhiig lumid ama dhiig ka yimaada mindhicirada caloosha oo la xiriira in ilmaha yari ay xasaasiyad ku qaadaan caanahan. Daawade, waan ka hadli doonaa waxa ilmaha u keena xasaasiyadda. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, subscribe dheh, gambaleelkana furo janaalka si aad ula socoto arrimaha xiga. Midda saddexaad, waxaa adkaanaysa in jirka uu nuugo iron-ta ama birta sabab ah dhib mindhicirada ay u keenayaan caanahan maadaama aysan calooshiisa u diyaarsanayn caanaha noocan ah. Saddexdaas ayaa keenta in caanaha lo'da ay sababaan dhiig yari. Mana ahan ilmaha kaliya waxay u keento dhiig yarida ee waxaa jira in ilmaha ka weyn 12 bilood ee saa'idka u caba caanaha lo'da kaliya oo aan qaadan cunto kale oo ay ku jirto birta ama iron-ta ay iyagana u sababta dhiig yarida nooca loo yaqaan iron deficiency anemia ama birta oo yaraata. Muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad ka heshay, like saar, subscribe dheh, gambaleelkana furo, lana wadaag asxaabtaada si ay wax uga faa'iidaan. Hana iloobin inaad fikirkaaga ii reebto. Mahadsanid.